أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عشر كيني تدبات قيبتي تدبات عشر كيني ظهارة isbedelada ku dhaca xaaladda xeydka waxaa jira isbedelo badan oo ku yimaada xaaladda dhiigga caadada ah xeydka tan koowaad siyaado ama nusqaan ku yimaada dhiigga xeydka tusaale ahaan haweeney caadadeeda ay socon jirtay 6 maalmood oo uu sii socdo dhiiggeeda caadada maalin dheeri ah sidaas uu dhiigga ku hayo 7 maalmood ama caado muddo ahaan joogi jirtay 7 maalmood oo ku dhamaata ama joogsata maalin lixaad tan labaad soo degdegida ama dib u dhac ku yimaada dhiigga xeydka tusaale ahaan haweeney heli jirtay caadada dhiigga xeydka bil kasta dhamaadkeeda oo isku aragtay iyadoo helaysa caadadii dhiigga xeydka bisha bilowgeeda ama inay heli jirtay bilowga bisha ee isku rogtay inay hesho dhamaadkii bil kasta culimada waa isku khilaafeen arrinkan la xiriira labadan mas'aladood qolka saxiixa ah waxa weeye in markasta oo ay haweeney aragto dhiigga caadada markaas waa qof caado xeyd qabta markasta oo ay haweeney daahir noqoto markaas waa daahir iyadoo aan la eegin oo la tixgelin inay jirto siyaado nusqaan soo degdegida ama dib u dhaca iyo soo daahida ku yimaado waqtiga caadadeeda tanina waxaa u sabab ah xaaladda xeydka sida aynu horey u soo xusnay waxaa aas u ah aragtida dhiigga xeydka tan saddexaad biyo curin ah oo midab huruud ah leh oo la yiraahdo sufra oo aad moodo sida malaxda iyo dheecaanka nabarada ka yimaada ama qudraha oo ah sida biyo wasakh ah oo calow leh oo u dhaxeeya midabka huruudda iyo madowga haddii aad isku aragto arrinkan inta aad qabto caadada dhiigga xeydka ama kadib markii uu ka joogsado ka hor inta aadan noqon daahir markaas waxaa laga soo qaadayaa dhiig caado xeyd markaas waxaa lala beegsanayaa axkaamta xeydka oo laga joogayaa dhammaan wixii laga joogayay dhiigga caadada dartii sida salaada soonka galmada insha allah qaybtii toddobaad meesha ha inoo joogto haddii rabbi idmo insha allah fadlan haddii aad dhegaysato subscribe saar like share gareey insha allah